ما يستعدين dhinaca barragiga ee qaarka kalena dhinaca midowga maxkamadaha furaanshaha goobaha ay dagaaladana ka dhaxayaan dartood ayaa waxa aad u adag in la helo warar sugan oo ku saabsan dagaalkaasi oo la sheegay in markii dambe uu isu rogay dagaal weyn oo ay kaga hor yimaadeen labada dhinac oo isla markaana ku faafay deegaan ballaaran ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo khasaaraha uu geystay dagaalkaasi hase yeeshee warar ku dhow dhinaca midowga maxkamadaha ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay dhinaca kale kaga qabsadeen dhowr baabuur oo kuwa dagaalka ah oo ay qoryo ku rakiban yihiin laakiin waxaanan weli wax war ah laga haynin dhinaca kale ee barrigiiraale dagaalkan oo baryahan si weyn loo taagaalinayay ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu barrigiiraale hore madax ugu ahaa isbahaysigii dooxada jubba uu dib isugu soo abaabulay deegaanka magaalada baardheere ee gobolka gedo halkaasoo uu dib ugu durtay ilaa intii uu ka soo baxay magaalada kismaayo oo hore xarun ugu ahayd isbahaysigiisii ka hor intii aanay si buuxda maxkamaduhu ula wareegin maamulka gobolka jubbada hoose wararkii ugu dambeeyey ee ka yimid dhinaca magaalada bu'aalana waxay sheegayaan inuu weli socdo dagaalkaasi saa ka bilowday iyadoo aanan la ogeyn baaxadda dhulka uu ku faafay iyo khasaaraha uu geysanayo midna waxayse wararku xaqiijinayaan in dadweyne fara badan oo ku dhaqnaa tuulooyinka ku dhowdhow deegaankaasi ay kaga qaxayaan guryahooda baqdin ay ka qabaan dagaalkaasi wixiina dagaalkani dhaxayaa xilli ay deegaankaasi ka da'ayaan roobkii xilliga dayrta kuwaasoo adkaynaya dhaqdhaqaaqa dhinaca gaadiidka inkastoo dagaalkan lasii saagaalinayay ilaa baryihii lasoo dhaafayba waxay haddana dadku u dhega taagayeen dagaal la filayay inuu maanta ka dhici lahaa dhinaca magaalada buurhakaba ee gobolka baay halkaasoo ay maalintii shalay gacanfaraynteeda la wareegeen ciidamo ka socda dowladda kumeel gaarka oo la sheegay inay taakuraynayaan ciidamo ka socda dowladda etoobiya magaalada buurhakaba ayaa maanta xasiloon inkastoo ay xiisada ku jirta deegaankaasi oo ay ciidamada labada dhinac isku hor fadhiyaan iyadoo ay xiran tahay wadadii isku xiraysay gobolka baay iyo magaalada muqdisho xiisadaasi darteed dowladda kumeel gaarka ayaa keenisay in dagaalkaasi magaalada buurhakaba ay ku lug lahaayeen ciidamo ka socda dalka etoobiya laakiin midowga maxkamadaha ayaa dowladda etoobiya ku eedeeyey in ciidamadeedu ay weerar qaawan ku soo qaadeen gudaha dalka soomaaliya xasan bariise b b c